tani waxay noqonaysaa haddii eebba idmo qisadeennii labaad, waana qiso aad iyo aad oo cajiib ah, wax badanna aad ka baran karto. la socod wanaagsan dhegayste. Louis Graffito, dilaagii ugu naxariista darnaa ee taariikhda casriga ah soo mara. Louis Graffito oo sidoo kale loo aqoon jiray La Bestia oo macnaheedu yahay xawayaanka, wuxuu ahaa dilaagii taxanaha ahaa ee serial killer ee ugu naxariista darnaa. ugu dambeyntiina waxaa la sheegaa inuu u dhashay dalka Colombia sanadkii 1957, waxaana falalkiisa lagu tilmaamaa kuwa aad uga duwan kuwa dilaayaasha caadiga ah, sababtoo ah wuxuu bartilmaamaysan jiray caruur, wuxuuna lahaa habdelid si xun u abaabulan. noloshii hore ee Louis Graffito wuxuu ka dhashay qoys sabool ah, dhibaatooyin badan ka jireen. caruurnimadiisii waxay ahayd mid buuxda oo lagula tacaalayay jirdil, dayac iyo xadgudub. aabihiis wuxuu ahaa nin adag oo aad u jirdili jiray isaga iyo hooyadiis. dhibaatooyinkaas ayaa qayb weyn ka qaatay xumaanta maskaxdiisa oo ugu dambeyntii u horseeday inuu noqdo dilaaga ugu cabsida badan ee abid la arko. qaabka uu wax u dili jiray Louis Graffito wuxuu bartilmaamaysan jiray wiilal daadoodu ay u dhaxayso 6 ilaa 16 sano jir. wuxuu u ekaan jiray nin wanaagsan, wuxuuna isticmaalayay warmarsiyo kala duwan si uu caruurta ula baxo. mar wuxuu sheegan jiray inuu yahay macallin ama samafale, mar kalena wuxuu ugu yeeri jiray inuu siinayo cunto, lacag ama shaqo fudud. mar walba markii uu helo kalsoonidooda, wuxuu geyn jiray meelaha cidlada ah sida beeraha, buuraleyda ama meelaha bannaan. halkaas ayuu ka kaxayn jiray, jirdili jiray, kufsan jiray, ugu dambeyntiina dilayay si arxan darro ah. tirada dadka uu dilay inkastoo aanay jirin tiro rasmi ah oo la hubo, haddana Louis Graffito wuxuu qirtay inuu dilay ku dhowaad 140 caruur ah, waxaana la rumaysan yahay tirada dhabta ah in ay ka badan tahay ilaa 300 oo caruur ah. waxaa xasuus gaar ah leh ayaa ah jirka caruurta in laga helayay meelo badan oo dalka Colombia ka mid ah. wuxuu isticmaalayay qori, mindi ah iyo khiyaano nafi ah si uu u qabto dhibanayaasha. Louis Graffito waxaa la qabtay sanadkii 1999 kadib markii la helay cadeymo isdabayaal meelo kala duwan. wuxuu qirtay dembiyada waxaana lagu xukumay 185 xukun dil ah, balse ma jirin dil toos ah oo lagu fuliyay. wuxuu helay xukun dhan 1853 sano oo xabsi ah, laakiin maxkamaddu waxay xukunka u bedeshay 22 sano oo kaliya, sababtoo ah wuxuu la shaqeeyay booliska si uu u bixiyo macluumaad ku saabsan dembiyadiisa. inkastoo dadka badankooda ay u arkayeen xukunkiisa mid cadaaladda ka fog, Louis Graffito wuxuu tusaale u yahay sida qof dhibana ah caruurnimadiisii u noqon karo dambiile aad u khatar badan haddii aan la daweyn ama aan la helin xanaanayn maskaxeed. qisadiisu waxay caddaynaysaa baahida weyn ee loo qabo ilaalinta caruurta, la socodka dabeecadaha dadka la shaqeeya ama la falgelidda caruurta, iyo ilaalinta bulshada guud ahaan. Louis Graffito weli wuxuu hayaa sumcad ah dilaagii ugu naxariista darnaa ee taariikhda casriga ah, waana dardaaran aad u weyn oo lagu baran karo muhiimadda ilaalinta bini'aadamka, gaar ahaan caruurta.